wafdigan uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Xaaji Cabdulle Isgoow ayaa soo gaaray degmada Buulaburte ee gobolkan Hiiraan waxaana safarkiisa ku wehelinayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka Maxamed Bashiir Qaasim Daqare agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka Hirshabelle iyo isku duwayaasha degmooyinka Beledweyne iyo Buulaburte waxaana garoonka diyaaradaha degmada Buulaburte ku soo dhaweeyay maamulka degmada odayaasha dhaqanka ururka haweenka iyo ururka dhalinyarada degmada ugu horeen waxa wafdigan degmada Buulaburte ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Buulaburte Cabdicasiis Duuraw waxaan loo yimid wafdi ballaaran oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda beeraha wafdigaasi oo wasaaradda aad muddo hadda inay idashayba maradii wasiir ku-xigeenkii agaasimihii guud iyo wasiirkii ay socdaan ku soo dhawaada degmadii Buulaburte waa dalkaad xukunteen waa deegaankaad xukunteen wasaaraddeena gacmo furan ku soo dhawaada saliisoo dhaween waa arkayseen magaaladan waa magaalo beeraha hodan ku ah iyo xoolaha labada kuliyaba ku taagan tahay waa lambar 1 waa beeraha lambar 2 waa xoolaha marka waxaan doonaynaa haddii Ilaahay yiraahdo oo aan idinka rajaynaynaa in aad shaqadii u timideen ka gudataan waajibaadkiinii waxna aad ku soo kulisaan degmadan iyo beeraheeda iyo wax alla waxaad u qaban kartaan insha Allah taala ku soo dhawaada sidoo kale waxa halkaasi hadallo soo dhaweyn ka jeediyay qaar ka mid ah qaybihii kala duwanaa ee ka soo qayb galay soo dhaweynta wafdigan maanta waxaan soo dhaweynay walaalahayna ugu horeeya wasiirka beeraha iyo wasiir ku-xigeenkii wasiir Daqare iyo wasiirka kale inta walaalahayna walaalayaal waxaan idin leenahay ku soo dhawaada waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa hawsha adil edmaday inuu Ilaahay idin la garab galo waxay Buulaburte oo ka jiro ama beeraha xaqooda ama webiga adika arki doontiin indhiina waa arki doontiin keen oo yimid degmada Buulaburte webiga eber ah oo maanta beeraheenin haduu bii karana baaba annahay horta alxamdulillah ishooda ay ku arkeen dhibaatada Buulaburte ka taagan isheena ma ku aragteen marka dibkana haysto wasiir waxaan idinka baahannahay inaad naga xirtaan oo beeralayda rafaadkaas waad yaabay aniga hadda kula hadlaayo kili waxa iga jeexan 15 mitir camal ha iga go'on dhibacda xareedana iga bixiyo dhibacda oo maxay ahayd oo gubigan hadda dhibac keen iga galo marka degmada waa ila qabtaa kaligay ma aha waxaan aniga idinka baryaa oo diila aragteen maanta gubiga eber aad aragteen oo gubiga hadda bii keenana aan dhibaato kale ay nahayso ugu dambeyn waxa ujeedka safarkooda ka warbixiyay wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka Hirshabelle Cali Xaaji Cabdulle Isgoow iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Bashiir Qaasim Daqare maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay anigu oo joogo magaaladayga labaad magaaladayna koowaad waxay ahayd Jowhartii labaad oo Buulaburte ah waxaan boqolkiiba boqol idinka mahad celinayaa soo dhaweynta wanaagsan aad soo dhaweyseen oo aan loo soo kala harin odayaasha culamo awdiinka barbaarti gaashaamaneed ciidankii qalabka sidii lama dhaafi karo hooyooyinkii dhammaan sidii maarta loo dhan yahay oo magaalada loo joogay boqolkiiba boqol waa idinka mahad celinaynaa anagana sidaas oo kale isla mid ayaan qalbiga idinka soo dhaweynay idinkoo aad ku laateen maanta oo waqti dheer banaankaas nagu sugayseen aageeda ayaa maartay hadda aan annagoo idin naxariisayna idin fasaxayna laakiin waa iskin jeclaan in aan idin la fadhiisano oo aan idin la sii sheekaysano laakiin waqtiga dambe ayaa badan oo maalmahan oo dhan waxaan jecelnahay inaan idinla joogno oo meel walba ay wax ka jiraan aan aragno aan ogaano celinaynaa soo dhaweyntii ballaarnayd hadday noqon lahayd odayaasha dhaqanka hadday noqon lahayd ururada haweenka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed walaalaha AMISOM iyo barbaarti gaashaanayd waxaan leenahay mahad ka gaartay soo dhaweyntii waqti daba ayaana joognaa waxaad ka arkaysaan sida aan ku soconay inay dhab naga tahay inaan gudano waajibaadkeennii aan u idmadayn wasaaradii wada socoto isku duwayaashii gobol degmo wasiir ku-xigeen agaasime waxaan joogi doonaa maalmaha soo socda insha Allah waana wada shaqaysan doonaa wafdigan ayaa maalmahan ku sii sugnaan doona degmada Buulaburte iyagoona kulamo la qaadan doono qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo kalena u kurgali doono xaaladda dhabta ah ee beeralayda xilli uu biyeeray webiga Shabeelle ee mara degmada Buulaburte
cabdisalaan maxamed ibraahim cabdisalaan habi Somali News Bulaburte